boqor maxamed jaamac cumar oo ka mid ah bahda dhaqanka Soomaaliland kuna sugan gudaha degmada Celifin ee gobolka Sanaag ayaa ka hadlay xaaladda guud ee degmada Celifin ee gobolka Sanaag isagoo fariin u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamay deegaanada degmada Celifin ee gobolka Sanaag. halkan aan joogo Celifin degmadan Celifin oo noqotay hadda magac berigi hore lagu xaman jiray oo loolan jiray war ceeba fuweyn waxa u dhuratay ceeba fuweynti reer ceeba fuweyna waxaan leeyahay waan maanta u soo jeedinaya war nabadgelyada danbaa idinku wada jirta nabadgelyo xumaduna kulligiin waa baabi'ina iyo burburkiina iyo halaagiina waxaan leeyahay horta ilaahay baa ummadda iyo koonkan maamula ilaahay baa ummaddu haddii ay maaragtay dee qarrimayso oo ay halaagsamayso waa wax maaragtay ilaahay xaggiisa ka yimaada waxaan leeyahay oo aan mar kale aan leeyahay war ilaahay u toobad keena ilaahay u toobad keena oo nabadgelyada qaata oo nabadda ku soo noqda waxyaabaha socdaa waxyaabaha wanaagsan maaha waxyaabaha cid dani ku jirtona maaha sanado badanna waa soo socotay markii xoogaa dadku ay maaragtay xoogaa ay dareemaan oo soo yarbisaana dhibaatadiiba halkii laga bilaabaya dilaaliin baa idinka dhex samaysantay dilaaliin dhiigi cabaa oo taleefanka ku maamula inamada yaryar ee qoryaha ay maaragtay u dhiibeen iyo qoryaha iyaga u yaalla istoodhada waana shaqaan reer Celifin wax walbana waa la ogyahay wax ku kala qarsoonina ma jiro haddii taadaniidu ku jirto dee ku socda ha ku dhamaateen haddii aan daniidu ku jirinna war waxa iska qabta dilaalinta iska qabta qoryaha mar meel la soo sanadkii la soo saaro iska qabta oo iska wareejiyo dawladda isaga dhiiba haddii kale dee karaamadiina iyo dadnimadiina iyo deegaankiina toona jiri maayo dhulkaanu dhul wanaagsan buu ahaa oo dhulka maanta xunay sigadu ka dhacayso afar casho ka hor iyo maanta isku mid maaha waxaan leeyahay nabadda ku soo noqda inaan isu wada bedelin qaato dariiq kuwa wadooyinka gooya wadooyinka gala waxaan ku baaqayaa wadooyinkan wada furo wadooyinka hala furo deegaanka wadooyinkiisa hala furo oo dadka ha loo furo oo ha noqoto wadooyinku dhul xumaanta ka caagan dhinin wax lagu dhibaateeyo ka caagan dhul in la istaago ka caaban waan ku baaqayaa magaalooyin la wada leeyahay noqdaan magaalooyinkii la wada ahaa lagu kala qaxay waxaan leeyahay hal loo ogolaado in lagu wada noqdo la wada deegaanada lagu noolaado dan magaalooyinkii lagu wada noolaan miyigana lagu wada noolaan maayo biyo laga wada cabi maayo wadooyinkii la wada mari maayo haddaan magaalooyinkii lagu wada noolaan waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo oo ilaahay ha loo noqdo oo yaynaan noqonin dad boqolkiiba boqol xumaan isku raaca dad wanaagga ka shaqeeyana dadku hadday xumaan isku raacaan waa la haliga ilaahayna baana dunida bedela ilaahayna kuwa ka khayr badan waxba kuma aha inuu ku bedelo Celifin iyo waxa nawaaxida ku nool Madiina meesha la yiraahdo Madiina oo Celifin u jirta wax 7 kiiloomitir ka yar deedaba dad baa lagu ku noolaan jiray shaashad beelay qiblada u jeedo kullu dad muslimiin ah magaasha iyo hareeraha dadkeedu ku aasay war Celifin sida inay noqoto inaan gacmahaaga ku sabamin oo soo degdegta waqti dhow sidaasaan ugu baaqayaa dadka media ka soo hadla fidnada wasiishida belada ka shaqeeya ama gobolada dhulka gobolada kala degan
inkastoo gobolada kale dadka hadda ay sidii hore iska yaraadeen sidii hore ka dareemayeen ay ka bedelan tahay wax la idinkuna aakhiradiina iyo dadnimadiina iyo waa la doogi doonaaye iyo sharafteena u tura dadkeena u tura da meel ku nooshihiin da shilin qaxooti qaadatiin dadkiina oo shilin qaxootina ma qaataan ka daaya dabka ku shidaysa iyo qaxooti qaxa iyo belada iyo dhibta iyaga intaasaan reer ceelfin intaas baan saaka